Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhammaantiin asxaabta. Haddii ay tahay markii ugu horreysay channelka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Abil Aswad Du'ali wuxuu ahaa caalim dhanka naxwaha caan ku ah. Wuxuu ahaa sidoo kale caalim reer Basra ah. Wuxuu amiir ama waali ka soo noqday magaalada Basra xilligii Cali ibn Abi Taalib radiyallahu canhuna wuxuu ka noqday qaadi. Abil Aswad inkastoo caalim ahaa oo nin naxwaha caan ku ahaa, laakiin wuxuu lahaa hal sifo oo liidata, hal sifo oo xun, waxayna ahayd bakhiilnimo. Wuxuu ahaa bakhiil saa'ida, macnaha bakhiilnimo waa ku fogaatay. Abil Aswad waxaan rabaa sheeko yar oo dhex martay asaga iyo nin Caraabiya oo ku saabsan bakhiilnimadiisii inaan idiin sheego. Waa sheeko yar oo iska gaaban, laakiin waa sheeko xoogay qosol leh. Abil Aswad maalin maalmaha ka mid ah isagoo cunto meel dhigtay, isagoo cunto micnaha loo soo dhigay u taalo, waxaa u imaaday nin reer baadiye ah. Wuu salaamay Abil Aswad. Ninkii reer baadiyaha waxaa la wanaagsanaatay cuntadii Abil Aswad Du'ali. Kadib wuxuu isku dayay inuu cuno, laakiin Abil Aswad wuu arkay inuu ninku cuntada raacay, macnaha naftiisu inuu cuntada raacday, jid ama wadooyinna uu soo mari doono si uu cuntada u cuno. Isna wuxuu go'aansaday inuusan cuntada waxba ka siin. Ninkii wuxuu isku dayay inuu Abil Aswad sheeko u sheego, sheekadaasoo keensanaysa in Abil Aswad uu yiraahdo ii sheekay, ila fariiso, badarka ila cun, kadib sheekada ii wad. Wuxuu ku yiri Abil Aswadow waxaan soo maray xaaskaagii. Wuxuu yiri laguma raacin adiga, jidkooday marayeen, adiga laguma raacin. Wuxuu yiri waxaan soo arkay haweenaydaadii oo uur leh. Abil Aswad wuxuu yiri saasaan uga soo tegay. Ninkii wuxuu yiri waa dhashay, waxay dhashay laba cunug oo mataana ah oo lab ah. Wuxuu yiri saasay hooyadeedba ahayd, macnaha wax cusub ma jiraan, hooyadeedba saasay mataano u dhali jirtay. Wuxuu yiri mid ka mid ahaa dhintay. Wuxuu yiri ma aysan awoodin inay laba nuujido, saas darteeda mid u dhintay. Caraabigii ama reer baadiye wuxuu yiri kii kalena waa ka daba dhintay. Wuxuu yiri murugo oo walaalkiis ka murugaysan yahay oo isna la dhintay. Wuxuu yiri habartina waa ka daba dhimatay. Ayadana wuxuu yiri ma aysan ahayn inay noolaato, wiilasheedii markay dhinteen kadib inay noolaato ma ahayn, waa dhimatay. Wuxuu yiri cuntadaadu waa macdahay, sidaas darteedaan keligay u cuno yiri. Intaasay ku egtahay sheekada. Hadday tahay markii ugu horreysay channelka subscribe iyo like waxaan naga bakhiilin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.